geesta kalena doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya xubnaha ka soo jeeda Somaliland ayaa la filayaa in dhawaan lagu doorto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii heshiis laba geesooda ay gaadheen garabyada ee siyaasadda ee Somaliland ka soo jeeday oo kala hogaaminayeen Cabdi Xaashi Cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar intii heshiiskaasi la gaadhay waxaa la sheegayaa in horumar badan laga gaadhay arrimaha geedi socodka doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo dooranayo ama ka soo jeeda Somaliland aan idhaahdee haddaba heshiiskaas ay gaadheen macna inteen leeg buu u samaynayaa geedi socodka doorashooyinka maxaase hadda horumaraha laga gaadhay tan iyo heshiiskaasi kadib barnaamijka waxaa marti ugu ah Cabdulla Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo waliba geeskaba isla markaana si weyn ula socday isbedelada dhinaca siyaasadda ee doorashooyinku ay ku tallaabsanayaan tan iyo intii awlahaasi ay bilaabmeen Cabdulla ku soo dhawow Universal TV dhawaan sideed arkayseen heshiis ayay wada gaadheen dhinacyadii siyaasadda ee Somaliland kala hogaaminayeen gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku kadibna kulan baa la sameeyay iscafisa taas waxaa looga gol lahaa in laga heshiiyo waxyaabihii kala qaybsanaanta macna inta leeg horta u sameynayay ama maxaa isbedel la dareemay tan iyo heshiiskaasi ay wada gaadheen labada dhinac marka hore waad mahadsantahay walaalkay Nuuridiin adiga iyo daawadayaasha barnaamijka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gobol kasta ay joogto waan salaamayaa walaalkay waad ogeyd heshiis baa dhacay la gaadhay heshiiskaas waxa heshiis la sugayay runtii tallaabana lama qaadi karin ilaa heshiiskaasi dhaco labada dhinac waxay muujiyeen kalsooni waxay muujiyeen is-afgarad waxa ay ku heshiiyeen qodobadii xusnaa iyo inay socoto camaliyadda maxay ahayd amba habraaci siyaasadda Somaliland xildhibaanada ka socday waxa kaloo heshiiskaas ina tusinaya inuu midho dhal ahaa runtii in labada dhinacba ay aayad qur'aan wallahu calaa maa naqulu wakiil ay ku qoreen oo ah ilaahay baa ka markhaatiya waxyaabaha aanu gaadhnay ama aan ku heshiinay waxaa xusid mudan dhexdhexaadinta oo rool aad u sarreeya uu ka qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan baashe Yuusuf Cabdilaahi isaguna amaanan iyo cid kasta oo ka qaadatay roolkeeda marka heshiiskaasi waa heshiis la isku afgartay in la sii wado hawsha doorashada waana mid amaanan ka muuqata xadaarad fara badan waana saas ku dhacay baan leeyahay waana heshiis midho dhala ma ka dhigan tahay marka inta badan waxa la oran jiray caqabadaha ama qodobada caqabada ku qabsoomida doorashooyinka waxa kamid ah arrinta Somaliland hadda doorashadii guud ee dalka in ay si habsamee saa ugu qabsoomi doonto ma loo arki karaa waxa runtii waxa qayb weyn oo kamid ah ay ahaayeen xubnaha ka soo jeeda Somaliland xildhibaanada labada aqal runtiina marka loo kala fadhiyo may sii socon karayn isu imaanshahaas oo loo xafladeeyay sida aad ugu sheegtay Nuuridiinow oo loo dabaaldegay dad fara badan ay ka soo qayb galeen dadkii danaynayay oo ay kamid yihiin dadkii ayagu murashaxiinta ahaa iyo kuwii hore oo ahaa xildhibaanada iyo wasiiradii ka soo jeeday Somaliland iyo xitaa heer ra'iisul wasaare iyo xukuumadii ay ka soo wada qayb galeen taasi waxayna tusinaysaa markaa in ay sii soconayso doorashada Soomaaliya haddii ay leedahay waxa weeye caqabad weyn oo ku taagan bay ahayd heshiiska reer Somaliland iminka way ka heshiiyeen waana ay sii soconaysaa waa tahay in dhinacyo ay kala qaybsamaan siyaasiyiinta Somaliland arrimaha doorashooyinka awgeed maxaa sabab u ah bay kula tahay adiga wallahi masaalix yani qof kasta dan buu leeyahay qof kasta wuxuu leeyahay maslaxad sarreysa amba danayn aad u sarreysa laakiin xalku wuxuu yahay in dhexdhexaad kala isugu yimaado amba xal alwasat kaasina uu dhinac ka yimaado maxay ahayd darafka kalena uu dhinac kale ka yimaado halku taagnaa kadibna meel dhexal isugu yimaado taasina waxa u baahnayd raganimo badan iyo indha isqabash badan iyo tanaasul badan labada dhinacba way muujiyeen waayeelnimo badan baa ay muujiyeen watahay Cabdulla hadda haddii waxaa la sheegayaa in isbedel badan la sameeyo soo doorashada Soomaaliya oo ay ku soo baxayaan dad cusub aan dadkii ahayn Somaliland haddayna eegno
sanadka waxaa ordaya dad badan oo ka yimi Somaliland gudaheedii oo waliba tiro aad u badan waxa la sheegaya kursi kastaba qiyaastii 4 marka celcelis la sameeyo 5 qof inay u tartamayso isbedelkaas inta leeg maxay ku salka ku haysaa in intaas oo qof ay soo doonto kuraasida iyadoo xilliyada hore la oran jiray cid xildhibaan noqotaba wala laa kullu waa su'aal qosalkeeda leh amba runtii oo kulli ay aanu kaftan ka marnay hala tartamo wala tartamaya kursiga qof gaari ma laha waxa halkan lagu qaybsadaa jufooyin baa lagu qaybsadaa sida doorashada Soomaaliya ay tahay marka dad kala duwan baa la doonayaa doorashadii ka dhacday xitaa Somaliland laftarkeeda oo saaxiibo badan ku leenahay waxa ka muuqatay in dhalinyaro badan yimaadeen dad badan oo xitaa aan siyaasiyiin ahayn ay doorashadii soo galeen wana kala doonayeen dad kala duwan ay yimaadaan aqalada labada aqal marka waa arrin aynu soo dhaweynayno hala tartamo tartanku waa xalaal waa arrin wanaagsan waa wax fiican baan leenahay oo laakiin isbedel dhinacii Somaliland waxay tiraahdaa go'aansiitaag baan la sameynay 1990 kan dhinaca kale koonfureed ka go'nay sida la ajli siyaasadda ma doonayna aan ku dhex milano hadda se waxa la arkayaa xubnihii ugu badnaa inay xildhibaan raadinayaan dhinacaas miyaanay u muuqanin Somaliland sidii hore ka soo dhawaatay may xukuumaddu ayada matasha bulshada laakiin dadkan imanaya waa dad ayagu naftooda matalaya doonitaankooda matalaya aragtiyahooda shakhsiga marka matalaya oo ku matalaya maxay ahaday marka mar walbana waxay ku xirantahay su'aashaasi qofka yani doonaya maxay ahaday halkan marka kulli kala duwanaansho hadii ay tii hore waa la ordayay tanna waa loo ordayaa runtii oo dadka badan baa ordayay saad sheegtay Abdullah dhinaca Somaliland doorashada ka dhacday saad sheegtay dhalinyaro cusub baa ku soo baxday fara badan xaggan marka la eego lafteeda waxa la rajeynayaa dhalinyaradu siyaasadda Soomaaliyeed maxay ka bedeli kartaa gobol walba hadaa tagtid gobol wal oo kamid ah gobolada Soomaalidu tagto majority-ga waxa ah dhalinyaro sida daraadeed dhalinyaradu waxay garanayaan amba ay mudrikiin ku yihiin baahiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysta gobol wal ay joogaan marka waa maalintoodii baan leenahay waa inay u tartamaan waa inay maxay ahaday aad ugu dadaalaan oo naftooda ay u bixiyaan sidii horumar waara ay uga dhici lahayd dhammaan gobolada Soomaalidu tagto kor ay u qaadi lahaayeen heerka aqooneed ee dhalinyarada Soomaaliyeed kor ay u qaadi lahaayeen heerka waxbarasho nololeed siyaasiyadeed wacyiga iyo aragti ahaaneed intaba watay dhalinyarada lafteeda waxa la yiraahdaa dhiig cusub miyay ahayd in baarlamaan uu isu soo taagaan maxay si ka bedeli karaan xilliyadii hore baarlamaanku sida ay ahaan jireen hadii ay dhalinyarada u badataan imanka wallahi waayelnimadu kuma xidna ambasaan anigu aaminsanay amba qofku inuu wax garad noqdo inuu da'diisu weynta amba ay yar tahay laakiin dhalinyaronimadu wax badan oo dhiig cusub weeyaan wax badan oo qofka weyn aan u muuqan amba uu ka gaabis yahay amba waxa weeyaan ayaa laga yaabaa isagu inuu ku dhiirado mana aha ceeb marka qaanuunka iyo dastuurkuna uu suurto gelinaya amba uu siinaya qofka inuu ka qayb galo marka sida aynu sheegnay hadii yihiin majority-ga bulshada hablayayna maba waa inay u tartamaan waayo baarlamaanku waa sawtu shacab amba waa codkii shacabka waxay matalayaan shacabkoodii oo iyagu u badan yihiin marka waa doorkeeda ay leedahay anagoo lahayn odayaashana inaan laga wada tagin ay mudan tahay ugu dambeyntii doorashada xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Somaliland muqdisho lagu dooranayo ma rajaynaysaa in waqtiga loogu talagalay ay qabsoomayaan ilaa imika waxa muuqda wax ina tusi kara ididiila fiican ilaa imika hawshu si habsami leh u socotaa ilaa imika gacmaha la haystaa waa talaabo wanaagsan san aan iiga muuqata runtii waxa ay ku rajo weynina talaabo kasta xilliga loogu talagalay inay dhacdo waa wadeen iyagoo isku duuban inay imika ra'iisul wasaaraha la kulmeen marka waan soo dhaweynaynaa qodobadaas oo dhameystiran waana runtii inay waqtigeedu ku dhacdaan la rajeynaya maxaad ugu dambeeyay adigu tala soo jeedinaysaa si
arrimaha ee socda siday ugu baahnaa loo baahnaa ay ugu qabsoomaan oo doorashadu waqtigeedii qabsoonto oo ay noqoto mid nabdoon oo lagu wada qanacsan yahay runtii heshiisyadii la heshiiyey in la wada fuliyo wixii la isku waafaqay inaan lagu kala tegin ee la waafajiyo isu tanaasulka iyo gacmo isqabsiga iyo xadaarad iyo in la matalo maxay ahayd reer magaalnimo amba haddii la yidhaahdo waxa weeye oo ugu horeyso wixii la isku waafaqay in la fuliyo ayaan ku talinayaa waana qodobadeenu waa falanqayn amba waa wixii dhacay inaynu falanqayno aragtiyaheena ka dhiibano waanaad ku mahadsantahay walaal nuuraddiin aad baad mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa cabdalla cabdiraxmaan cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana aan wax ka weydiinayey siyaasadda iyo doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ama somalilan ka soo jeeday ee la filayo doorashadoodu inay ka dhacdo magaaladan caasimadda ee muqdisho.